madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar ku bixiyay in aan la aasin taliye Nuur Farey oo lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose iyo sidoo kale taliyaha ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliya Oduwa Yuusuf Raage iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo arrimo xasaasi ah khadka telefoonka ugu wada hadlay. waxaan idin wadaagayaa sababta keentay in dib loo dhigo aaskiisa, amarka uu bixiyay madaxweynaha Soomaaliya, wada hadalka madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo aad xasaasi u ah. hayeeshee waxaan marka hore idinka codsanayaa in aad muuqaalkeena soo gudbisaan, la gareysaan, share gareysaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. iyada oo aad ogtihiin in saacado badan ay ka soo wareegatay geerida Allah u naxariistay taliyihii ciidanka militariga dowladda gaar ahaan 14 Oktoobar General Sheego Axmed Cali, dowladda Soomaaliya aysan ka hadlin oo aysan wax danqasho ah u muujin ehelada iyo sidoo kale generaalka geeridiisana aysan ka hadlin, ayaa waxaa soo baxaya warar iyo xogo xasaasi ah oo sheegaya in qadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Oduwa Yuusuf Raage. waxay ka wada hadleen in aan la aasin taliye Nuur Farey oo maalmo ka hor lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ilaa iyo laga baaro sababta rasmiga ah ee dilkiisa iyo shakiga ah in loo soo dhaxmaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo qaab shirqool ahaan ah loo dilay. waxaa la sheegay in baaritaan rasmi ah la gelin doono arrintiisa, ugu dambeyntiina la soo saari doono cidda ku lugta lahayd iyo saraakiil dowladda ka tirsan oo laga shakisan yahay in abaabulka arrintan qayb ay ku lahaayeen, isla markaana goobta uu ku sugnaa ee lagu dilay ay keeneen ninka falka toogashada ah fuliyay, kadibna goobta lagu dilay ninkaasi si aan xogtiisa iyo faahfaahinno ku saabsan cidda ka dambeysay, cidda soo abaabushay, halka laga soo abaabulay iyo cidda campaign gareynaysa aan loo helin ayaa ninkaasi loo dilay. haddaba waxa uu madaxweynaha amar ku bixiyay in aan la aasin oo aan gorgortan laga galin, wuxuuna faray ciddii arrintaasi ka dhiga adeegtay in xabsiga loo taxaabi doono, oo taliye Oduwa Yuusuf Raage iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintaasi isku raacay. haddaba waxay su'aal luhuwanaysaa sarkaalkii ka dhintay ee geeriyooday General ahaa isla markaana hogaaminayay ciidanka 14 Oktoobar la dhahayay ee ka shaqeynayay gobolka Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, Sheego Axmed Cali ee gacanta dowladda ku baxay, dowladdan ay ka aamustay, Xasan Sheekh Maxamuud uu ka aamusay 2 maalin ka hor ama 3 maalin ka horna uu ka hadlayay taliye Nuur Farey oo geeriyooday, bartiisa gaarka uu soo dhigay, barta Villa Soomaaliya soo dhigay. hayeeshee arrintan General Allah u naxariistay Sheego Axmed Cali, dowladda waxay ugu aamustay iyo shaqada ku geedaaman iyo degdeg ay doonayso dowladda Soomaaliya in lagu aaso, iyo dadkii matalayay oo qaarkood la kala dilay oo laaluush lagu bixiyay arrintiisa, iyo dowladda waxay u dalbanayso in lagu aaso isbitaalka xoogga dalka, taas oo abuuraysa shaki kale oo ah in ay meesha ka soo baxayso warka ah in la sumeeyay ay meesha cadaanayso. waxaa cadaanaysa in dowladda Soomaaliya markii horeba aysan raali ka ahayn sii noolaanshaha generaalkan Allah u naxariistay geesiga ahaa ee geeriyooday kuna baxay gacanta dowladda federaalka, gaar ahaan dowladda madaxda ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud oo iska daawanayay intii uu xirnaa, daawanayay markay dhacayso xukunka cadaalad darrada ah, dhacaysa weerarka ka aamusay xildhibaanadii u tagay ee ballanqaadka u sameeyay ahaa in uu sii deyn doono, xeer madaxweyne ku cafin doono, iyada oo weliba qalad ay ahaydba in xeer madaxweyne ku cafiyo maadaama asiga qalad laga galay General Sheego ahaydna inta uu noolaa in la raali geliyo, magdhow la siiyo. hayeeshee intaasi aysan dhicin. maxay haddaba kala mudan yihiin ama kala dheer yihiin ninkan la dilay ee sarkaalka ahaa iyo generaalkan dadka u soo shaqeeyay, dalka u soo shaqeeyay ee dhiiggiisa u horay, naftiisa u horay, oo khatar badan u galay meelo kuwa hadda sheeganaya inay yihiin saraakiil iyo generaalo gali waayeen, galay, lagu tijaabiyay iyadoo la xabsanayo. hayeeshee Ilaahay uu ku badbaadiyay kana mira keenay howlgallo badan oo ka dhacay Hiiraan, kuwa ka dhacay Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Hoose. haddaba su'aashaasi jawaabteeda waxaa looga fadhiyaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo cid walba oo bila macna darro ama indho la'aan ama aragti la'aan
ku difaacaysa qaladaadka waaweyn oo ay dowladda xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyo ay galayso kana mid tahay saraakiisha la kala eexsanayo kuwa dabka lagu shubayo kuwa inta xasan sheekh maxamuud uu joogo la dilay kuwa nolosha lagu qabsaday iyo kuwa weli la la'yahay iyo kuwa xuquuqdooda waayay haddaba muuqaalkan dib ku soo gaaray soo gudbi sheer garay lana sii wadaag asxaabta wixii xoga ahna halkan ayaad kala doontaan